بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صدق والدواديال وأنا كابتن عبيس halkan waa isla kabtankii waxaynu dul istaagi doonaa Jubbaland iyo shalay halkaas wixii ka dhacay iyo ceebtii shalay halkaas ka dhacday iyo hawshii shalay halka ka dhacday iyo mashaqadii baynu dul istaagi doonaa soo dhawaada haddii ku soo gaaro muuqaalka waad si share garanaysaa page-kan waad la garanaysaa haddii aad waxnayna waad soo follow garanaysaa aynu ku bilowno horta dhawaan waa tii madaxweynaha Jubbaland uu qabtay ciidankii ku sugnaa dawladda ee ku sugnaa raas Gamboni ee dawladda ku soo daabuleysay waa kii 15 cisho uu qabtay 15 cisho iyadoo la gaarinba oo hal maalin ka dhiman tahay ayay ciidanka Jubbaland iyo ciidankii dawladda shalay halkaas isku fara saareen halkaas waxa ka dhacday horta shalay fadeexadii ugu weyneyd iyo ceebtii ugu weyneyd ayaa halkaas shalay ka dhacday ciidankii dawladda federaalka meesha ay ku soo gureysay هرمعد قرقر وحواس سيدنا هل كان انت لوهي اللي وعب سنشري ددك horta قرقر دم ميال إذا كم مقلي قرقر باسيدنا يا شيء قرقر باسيدنا أدم بي يا لقى مقلي horta هرمعد باسيدنا يا هرمعد با هلك وحيز دم بي يا هرمعد با وحلا درت دم بي يا لقى مقلي horta شري ماشاس وحا اسكو فرساري ciidankii Jubbaland daraawishta Jubbaland gaar ahaan guuta la yiraahdo abris oo hadda maalin dhow 5 bari ka hor 4 bari ka hor tababar loo soo xilay iyo ciidankii federaalka kumaandooska ahaa ee gorgor iyo haramacad iyo darab bay isugu jiray iyo halkaas ku farasaaray ciidankii dawladda federaalka ahaa ee halka ku sugnaa waxa laga dhigay wax la qabto wax dhintay wax dhaawac iyo wax baxsaday ayaa la iska dhigay ayaa laga dhigay waxaa ceebta ugu si weyn waxay tahay ciidanka xadka intay tallaabeen ciidankii dawladda federaalka ah ee lagu cabsin jiray dalalka iyo dadka iyo dariska meel kasta lagu cabsin jiray ceebta ugu weyn baa waxay tahay xadkii intay tallaabeen iyagoo qoryaha taagahaya waxa soo gudbiyay dawladda Kenya iyagoo dhowr boqol ah waxa maxaabiis ahaan u hayay oo isu dhiibeen ciidanka Kenya iyaguna xuduudka ku sugan intay gudaha u soo galeen dhinaca Kenya waa ceebta ugu weyn iyo fadaaxadii ugu weyneyd halkaas ka dhacday weeyaan qayb kale oo maxaabiista waa la hayaa iyaga oo 200 wax saas gaaraya qaybtaas maxaabiista ana inkastoo muuqaaladooda baraha bulshada ku aragteen handana cadeynta ayaan idin la wadaagayaa waatane bal la yardaa wadayadana waayahay waad aragtaan baan filayaa maxaabiista halka farfadhida oo madaxii askartii oo ceebta iyo fadeexada meeshaas ka soo gaadhay madaxa hoos u wada roganayo oo kaamirada laga duubayo indhaha hoos u wada roganaya waa aragtaan baan filayaa ciidankii kale ee dhaawac ahaa iyo wixii dhimasho ahaa Jubbaland baa loo soo qaaday Jubbaland baana ka hadashay waxaan horta waa wiilal Soomaaliyeed waxay dawladda Jubbaland sheegtay iyo maamulka Jubbaland waxay sheegeen in ay sidii wiilashaas reer Jubbaland iyo askartaas reer Jubbaland loola dhaqmayo sidaas in iyagana loola dhaqmiyo bay sheegeen oo wax ma taqaanaa xadguduba aan lagu sameeynin iyaguna wax dambi ah oo khalada ay salahayn balse loo adeegsaday arrimo aan ku wanaagsaneyn ciidankan iyo askartan waayahay intaas markii laga yimaado waxa ilaa shalay la taliyihii ciidankan watay ee guutada 8aad ee gorgor waa taliye Ciraaqi waa ninkii ugu sarreeyay raas Gamboni ciidanka jooga ee kolba TV-ga soo fariisanayay ee media ka hadlayay taliye Fanax taliye Ciraaqi ayaa hadda waxay sheegeen dawladda iyo maamulka Jubbaland iyo ciidanka Israa'iil waxay noo xaqiijiyeen in gacanta lagu soo dhigay isaga iyo askar uu watay isagoo maxaabiis hore ayaa waxay media lagu soo gudbinayay aad loo soo dhigayay ID kaarkiisii iyo shaatigiisii oo ku cararaysan ID kaarkiisii inta laga soo bixiyay ID kaarkiisii askarinimada iyo aad media loo soo dhigay balse hadda isaga iyo ciidan uu wato oo ilaalinayay ayay ciidanka Jubbaland barqanimadii maanta gacanta ku soo dhigeen waxaana si toos hadda nagu xaqiijiyeen Jubbaland iyo ciidanka Israa'iil in matqaanay ninkaas iyo wuxuu watayba gacanta lagu dhigay waayahay hadaba fadeexada iyo ceebta meesha ka dhacday iyo mas'uuliyadda yaa qaadanaya fadeexada iyo ceebta iyo meesha ka dhacday waxa qaadanaya dawladda federaalka Soomaaliya oo ugu horeeyay madaxweynaha Soomaaliya waa Xasan Sheekh Maxamuud ee ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa waa Xamse Cabdi Barre ayaa qaadanaya arrin yar oo siyaasi ah oo u dhaxeeya Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo iyaga ayaa waxay dhaheen waxaan u adeegsanaynaa ciidan iyo dagaal iyo mataqaanaa qajajac
dembiga haddaba halkaas ka dhacay waxaa qaadanaya oo dusha saaranaya waa dowladda federaalka. intaas marka laga yimaado dagaalka horta shalay siduu ahaa ee u socday gobolka ku dhacay intuu aroortii markii waagu baryo uu bilowday iyo sida khasaaruhu mataqaanaa dagaalka ee uu ahaa aad iyo aad bay u kala fog yihiin. khasaare fara badan ama dhimasho fara badan ama dhaawac fara badan meesha ma soo gaadhin. ciidanka jubbalandna guud ahaan waxaan inay gacanta ku dhigaan u bay rabeene way isxakameynayeen, intaas way is ilaalinayeen. askari mataqaanaa la qabtay oo nolosha lagu qaban karay maysan ku xadgudbin inay dilaan, kuwa ay layn kareen inay laayaan maysan mataqaanaa ku talagelin. meeshaas aad bay isu xakamayeen ciidanka jubbalandna dagaalku siduu ahaa dhimashadu aad iyo aad bay u yar tahay, dhan kastaba ha ahaatee dhaawacuna wuu yaryahay. haddaba si guud fadeexadda iyo ceebta halkaas ka dhacday dowladda federaalka ayaa dhakada saaranaysa. waayahay intaas marka laga yimaado madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare Itoobiya waa Abiy Ahmed ayaa waxaa wada hadalsiinayay oo isu geeyey madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan. xasan sheekh maxamuud badii uu la murmayey ee ku dagaalamayey ee uu lahaa dad baa mataqaanaa Itoobiya lama hadlayno lama hor istaagayno intay arrinkaa ka noqonayso intay sidan yeelayso. haddaba badii isagaa saxiixay, qorshihiisuna wuxuu ahaa muuse adigu ha saxiixine anigu aan saxiixa bay ahayd. isku soo wada duuduub halkaasna waxaa ka soo baxay tan waa arrimaheena gudahay ahaydba iyo ciidankuweena wiilal Soomaaliyeed oo la iska horgeeyo la isku qaday bay arrinku tan ahayd. laakiin ceebta iyo fadeexadda ugu weyn ee meesha ka dhacday waa taasaa ugu daran. badii wuu saxiixay si toos ah yuu saxiixay 25 mataqaanaa Febraayo 2025 isku soo laabanayaan oo isu imanayaan uu saxiixuna dhacaya. xasan sheekh maxamuud dhan kaste waa u jabiyey dowladdii Soomaaliya, waana u ceebeeyey wiilashii Soomaaliyeed ee loogu faani jiray dalalka dariska ah iyo meel kaste cid kastana loogu faani jiray ee gorgor lahaa ee haramacad lahaana dee waa kuwan waad aragteen iyagoo indhaha hoos wada riganaya oo wada qajilsan oo wada fadeexadda iyo waxa meesha ka soo mataqaanaa ka yimid la wada yaaban. aad iyo aad baan idin salaamaya. muuqaalkaad idin soo gaadho waad si sheergaranaysaan. barnaamijyadan iyo arrimaha Jubbaland wixii ka soo kordhana si toos ayaad halkan igala socon doontaan. aad iyo aad baad mahadsantihiin.